بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك waxaan idin wada rajeynayaa dhamaantiin inaad bisha Ramadaan ku soontaan si qurux badan oo eebbe idin dhib yareeyo maanta waxaan idin bilaabayaa barnaamij inoo socon doona bisha Ramadaan oo dhan hadii eebbe qadaro oo aan idinku kala bedeli doono 3 buugga koowaad aan idinku bilaabayaa waxa uu noqonayaa dambaalada quraanka maadaama ay bishani tahay bishii quraanka sidoo kale barnaamijkan waxaan ugu magac darnay amaanu bixinay dambaalka Ramadaanta maalin kasta oo kamid ah bisha Ramadaan hadii ay baqadaro waxaan idin wadaagi doonaa hal dambaal oo rajaynayna inaad wax ka faa'iidaan midka maanta ugu horeeya wuxuu noqonayaa hadii ay baqadaro aayadan ah inni jasaytuhum al-yawma bima sabaru annahum humul faa'isuun oo macnaheedu yahay maanta waxaan kugu abaalmarinayaa adkaysigoodii waana guuleysteen alla dartii oo loo samraa waa cibaado xumaanta oo laga dhowrsaday cibaadooyinka oo lagu mitidaana waa cibaadooyin kale xumaanta oo aad joojiso adiga oo sameyn kara aragaaga oo aad laabato adiga oo wax eegi kara iyo laaluush oo aad iska diido adiga oo qaadan kara oo xumaantii waad iska moostay abaalkaaguna ilaahay ayaad ka helaysaa inaad wax bixiso adiga oo hantida jecel inaad salaada subax u kacdo adigoo hurdo macaan ku jira iyo inaad u samafasho waalidka adigoo la daala dhacaya duruufaha nolosha waa cibaadadii aad ku mitiday abaalkaaguna alla agtiisa waa uu ku weyn yahay